wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka safiiradana Djibouti Soomaaliya Kenya wafuudda ka kala socota dalalka Ingiriiska nahay ee Ethiopia iyo Kenya iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay nolosha aragti wadaag sanadlaha ah ee uu soo qaban qaabiyay mahadka Heritage dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal waxaa maanta sharaf ii ah in dowladda aan walaalaha nahay ee Djibouti iyo mahadka Heritage igu casuumaan munaasabadda xiritaanka shirkan ee kulmiyey maskaxda dadka Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobolkan aan degno iyo meelo badan ee dunida inteeda kale ah waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarab istaagga dhinacyada siyaasadda bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda Djibouti ay had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaa xusid mudan shirweynihii taariikhiga ahaa ee dib u heshiisiintii Soomaaliyeed ee Carta kaas oo lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee sanadkii 2000 sidoo kale dalka Djibouti waxa ay dalka Soomaaliyeed u soo dirtay ciidamadeeda oo ah ciidamada hiil walaal nabad ilaalinta AMISOM kuwaas oo si wax ku ool ah oo ay walaalnimo ku dhaahan tahay uga qayb qaataan nabad ilaalinta Soomaaliya sidoo kale waxaan bogaadinayaa madasha aragti wadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah taas oo ah madal kulmisa haldoorka Soomaaliyeed ee dacallada dunida gaar ahaan geeska Afrika laguna garfeeyo amuuraha quseeya Soomaalida gobolka waxaan si gaar ah u bogaadinayaa doorka dumarka ee shirkan gaar ahaan doorka kaalinta dumarka ee nabadeynta geeska Afrika ka dowlad ahaan waxaa naga go'an xaqiijinta qoondada haweenka iyadoo ilaa hadda ay gaartay 25% kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa waajib nagu ah inaan ilaashano waxyaalaha naga dhaxeeya ee isku keen haya inaga oo ku kala nool xuduudo iyo calamo kala duwan hoostooda isla markaana ixtiraam iyo isfaham kula nool dadweynaha kale ee aan dalwadaagtanahay dowladda Soomaaliya waxay u taagneyd welina u taagan tahay ilaalinta mabaadi'da jiritaanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba waxaan sidoo kale qirayaa in madaxweynaha dowladda iyo shacabka Djibouti ay waqti maal iyo maskax badan ku bixiyeen garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee deegaan kasta ee ay ka soo jeedaan gaar ahaan xilligii adkaa ay burbursaneed dowladda Soomaaliyeed ee badriga u ahayd matalaadda iyo isku haynta dadweynaha Soomaaliyeed haddii aan u soo laabto shirkan oo aan si dhow ula socday maalmihii la soo dhaafay waa mid ku soo beegmay xaqiiqdii waqtigiisa gobolkan waxaa ka jiray deganaansho la'aan siyaasadeed oo u baahan in si qoto dheer looga doodo si loo fahmo ubuucda dhibaatada xal waarana loo helo dhibaatooyinka gobolka waxaa kaloo sabab u ah heerka faqriga ee bulshooyinka dhaqaalaha oo aan lahayn kobac joogto ah masiibooyin dabiici oo soo noqnoqda shaqo la'aan baahsan iyo argagixisada diinta islaamka si qaldan u fasiratay sida jadwalka shirka ka muuqata waxaa shirweynaha lagu lafaguray arrimaha ka aloosan geeska Afrika oo ay Soomaalidu tira ahaan tahay qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan
iyadoo ay xusub mudan tahay in Soomaalida juqraafi ahaan ay gobolka uga nooshahay goobaha halbowlaha oo ah dhaqaalaha iyo xiriirka caalamka. si kastoo ay jiraan caqabadaha aan kor ku soo xusay, haddana waxaan hoosta ka xariiqayaa Soomaali ahaan aan haysano fursadda ugu fiican ee geeska Afrika haddii aan si wadajir ah uga shaqayno xal u helidda mushkiladaha. haddaba aniga oo ka duulaya dareenka dadka halkan jooga iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay, waxaan idinla wadaagayaa in xaaladda hadda Soomaaliya ee doorashada ay dalku marayso meel wanaagsan, inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira daahfurnaanta doorashada. si aan tabashooyinkaas wax uga qabanno, waxaan qaadanay tallaabooyin dhowr ah oo lagu saxayo qaladaadka ka jira hufnaanta iyo daahfurnaan la'aanta doorashada. tallaabooyinkaas aan qaadnayna waxaa ka mid ah la tashiyo aan la yeeshay golaha wadatashiga qaranka si looga arrinsado tabashooyinka soo noqnoqday, xoojinta madax bannaanida guddiyada odayaasha ee soo xulaya ergooyinka doorashada, adkeynta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka electoral commissionka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka oo lagu heshiiyey. fursad in la siiyo goobjoogayaasha wadaniga iyo kuwa heer caalamigaba observerska, anigoo ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed daahfurnaan la'aanta doorashada, gaar ahaan dadka ay sida gaarka u qusayso ee musharaxiinta ah. waxaan noo qorshaysan kulan uu golaha wadatashiga qaranka uga arrinsanayo xoojinta daahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada, si doorashadu u noqoto mid ku dhammaata nabadgelyo. waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ee saameynta ku leh doorashada in aan ka wada shaqayno in doorashadu noqoto mid daahfuran, laguna kalsoonaan karo oo dalka gaarsiin kartana xasilooni siyaasadeed. dad asxaabta ka mid ah dad halkan jooga oo ka soo qayb galay shirkan dhowr su'aalood mar aan dhex maray su'aalo ay weydiiyeen oo boobsiis ahaa oo uga weydiinayaan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho aan ka yimid, iyagoo weydiinayo wararka siyaasadeed ee Muqdisho ka jiro, meesha laga jiro siyaasiyiinta, khilaafka iyo isdhex tafanaanshaha siyaasiyiinta, iyadoo midka kale uu ku eedeynayo hebel waa dhuuntay, hebel waa laga shakiyey, hebel meeshaasuu galay, hebel waa la qaatay, iyo cabsi joogta ama traumaha dadka haysato. sidoo kalena waxaa la isweydiinaya ra'iisul wasaaraha muxuu la aaminsan yahay waayidan talayna waddamadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay, muxuu la aaminsan yahay wax kale lama aaminsani. dherigii saddexda dhadhaab u dhexeeya ayaan ahay, hadday tahay madaxda dowlad goboleedyada aad ogtihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin, hadday tahay musharaxiinta, hadday tahayba xafiiska madaxweynaha. marka dherigaas sida wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti uu sheegay cirradu waa ugu taalla, laakiin si fiican uma soo fiirin. marka su'aalahaas oo dhan waa la weydiiyey, waxaan u malaynayaa su'aalahaas waa laga dheegsan yahay, cid dhabarka naga soo taabatay iyo cid aan u dhuumanay midna ma jirto. doorashadu waa qabasho. waxaan kale u sheegayaa dadka magaalada Muqdisho ku nool oo intaasoo welwel haysto, intaasoo walbahaar haysto, waxay u badan yihiin dad ku badan dhiigga wadaniyadda ama wadani jacaylka. saan la socotiina dadka magaalada Muqdisho joogo meel kastoo dalka Soomaaliya ay wax ka dhacaan waa dadka kaliya oo u danqada. tusaale ahaan haddaan usoo qaato wixii ka dhaca Dhuusamareeb, wixii ka dhaco Garowe, wixii ka dhaco Kismaayo, wixii Baydhabo ka dhaco, dhammaan goobahaas lagama dareemo, waxaa laga dareemaa magaalada Muqdisho. marka waxaan u bixiyey shacabka Muqdisho roobkii ka da'o Garowe ama Kismaayo ama Baydhabo ama Dhuusamareeb waxaa laga dareemaa ama dalladda ay kala baxaan Muqdisho. marka waa dad dareenka aad u leh. mudane marweyne
haddaan dib ugu soo noqdo inkastoo xasaaradaha ka jira gobolkan ay u muuqan karaan kuwo gaamuray haddana waxaa jiro fursado xal waara loogu gaari karo fursadahaasi waxaa ugu muhiimsan in dhidibada loo aaso siyaasad loo dhan yahay oo ku dhisan sarreynta sharciga iyo is-aqbalaad sida aan ka barannay dalkan aan joogno xeerka ciisaha ee odhanaya xeer waa xakamo taas oo muujinaysa in dhaqankeenu uu dhiirigelinayo ku dhaqanka sharciga walaalayaal gobolkan waxaa iiga muuqdo runtii yadadiilo wanaagsan iyo mustaqbal ifaya marka aan fiiriyo dhallinyaradiisa caaboon bulshadiisa nabadda jecel khayraadka dabiiciga ah iyo meesha istiraatiijiyada uu gobolkan ku yaallo waa mas-uuliyad dhammaanteen na saaran sidii aan uga faa'iidaysan lahayno aan ka fikirno fursaddaasna way noo jirtaa waxaan mar kale u mahad celinayaa madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle sidoo kale waxaan bogaadinayaa maxadka heritage oo cilmi baarista oo sanad walba qabta madasha aragti wadaagga soomaalida oo ah meel lagu shiilo maskaxda iyo caqliga soomaaliyeed waxaan ku soo gunaanadayaa oraha aan aad u jeclahay oo ka mid ah xeerka ciisaha taas oo odhanaysa ciise waa ciise ninna nin caarab ma dheera laakiin waxaan ku bedelayaa soomaali waa soomaali qofna qof caarab ma dheera waa mahadsantiin